waa kuwee magaalooyinka adduunka ee aan habeenkii laga seexan. Badanaa caasimadaha iyo magaalooyinka markii habeenkii la gaaro waa firaaqo, sababtoo ah dadka badankood ayaa hurda, dhaqdhaqaaqa badankiisna waa uu istaagaa. Balse waxaa jira magaalooyin laga soo tooso xilligii la seexan lahaa ama aysan dadkeedu seexanin oo uu habeenku u yahay sida maalinka. Waxaa la sheegayaa in horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada kale ay magaalooyinkaas ka dhigaan kuwo laga soo jeedo habeenkii oo dadkeedu ay shaqeeyaan. Walaaca ayaa ah in haddii magaalada laga soo jeedo habeenkii oo dhan uu faraha ka baxayo buuqa taraafiga iyo isticmaalka daroogada. Waa kuwan qaar ka mid ah magaalooyinkaas ee laga soo jeedo habeenkii oo dhan. New York City. Magaalada New York oo loo yaqaano magaalada aan laga seexanin habeenkii, gebi ahaanba lama xiro qadka tareenka dhulka hoostiisa mara. Maqaayadaha iyo baararka lagu caweeyo waxay furan yihiin ilaa 5 aroornimo. Doomaha lagu kala gudbo ayaa iyagana shaqeeya xilli kasta. Dhibna ma ahan in xilli kasta New York laga helo cunto iyo madadaalo. Waxaa jira goobo aysan wax qarash ah kaaga baxaynin oo ay ka mid tahay Times Square oo astaan u ah magaalada, balse sidoo kale ay jecel yihiin dalxiisayaasha. Buenos Aires, Argentina. Argentina waxaa loogu yeeri karaa waddanka hurdo la'aanta. Caasimadiisa Buenos Aires waa mid ku xiiso gelinaysa haddii aad doonayso in aad jaanka ciyaarka ka qayb gasho ama aad daawato goobaha sida tooska ah muusikada loogu tumo, iyo in aad cunto cunooyinka macaan ee magaalada. Kroger waxa ay ka mid tahay goobaha ugu caansan ee lagu caweeyo oo shaqeeya xilliga habeenkii. Balse haddii aad doonayso meel aamusan oo degan, waxaad tegi kartaa El Viejo Almacén oo ah goob taariikhi ah, halkaas oo aad ka daawan karto ciyaaro. Qaahira, Masar. Liiska caasimadaha soo jeeda 24 saac ee guud ahaan caalamka, magaalada Qaahira waxay kaga jirtaa kaalmaha hore, sida caasimadda Montevideo ee dalka Uruguay oo kale. Nolosha habeenkii iyo sawaxanka 24 saac ee Qaahira waa wax iska caadi ah, oo waa magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo dad ah. Qaar badan waxay cabaan kafeega oo asxaabtooda ayay waqti kula qaataan maqaaxiyaha. Tokyo, Japan. Inta badan magaalada Tokyo waa mid dad badan waqti kasta oo ay tahay habeen ama maalin. Waxaa furan ganacsiyada magaalada, wax kasta oo aad go'aansato in aad samayso waad ka heli kartaa nolosha habeenkii ee magaalada Tokyo. Sidoo kale waad safri kartaa, wax badan ayaadna arkaysaa haddii aad soo jeedo habeenkii. Beirut, Lubnaan. Magaalada Beirut waxay sidataa macnaha dhabta ah ee habeen soo jeedka. Suuqyada Beirut oo ay qayb ka yihiin goobaha laga dukaamaysto iyo faris magaalaha waxay ka mid yihiin meelaha caanka ku ah saamaleelka. Haddii aad doonayso dalxiis kaliya, booqo goobaha lagu qabto munaasabadaha dabaaldegyada, halkaas oo mar walba ay ka socdaan munaasabado kala duwan, xilli kasta oo ay ahaato. Waxaan soo gaarnay dhammaadkii muuqaalka. Haddii aad jeceshahay in aad daawato muuqaalo noocan oo kale ah, fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran Dhextaal. Mahadsanid.